السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما سحبت من البوجوكتاني سول بنا مقلسا waxaa ku soo dhawaataan shabakada Malin Editing Official. muuqaalka aad ku xisbad daawadayaal waxaan jeclahay inaan kuu soo gudbiyo asxaab badan ay u soo codsadeen qaabka ay channel-kooda u kordhin karaan subscribe-kooda isla markaana channel-kooda u dhigi karaan subscribe-ku waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee channel-kaada lagu doorto isla markaana dadka kugu soo xirmaan channel-kaada hadduu leeyahay subscribe aad u badan waxay ka dhigan tahay in dad badan ay kugu xirayeen isla markaana aad tahay qof magac weyn leh oo dadka kale ka soocan haddaba muuqaalkan waxaad idinku soo gudbi doonaa waddooyinka ugu sahlan ee aad ku badi karto dadka kugu xiran ama subscribe-kaaga sida aniga aan u kordhiyay bilooyinka ugu dambeeyay subscribe-kayga waddada koowaad ee subscribe-kaada ku badi karto daawadayaal waxay tahay inaad u shargareyso ama la wadaagto muuqaalkaada social media dhammaantiin iyo qof walba anaga mid ah wuxuu isticmaalaa social media sida Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram haddaba muuqaalkaada u shargaree social media adiga aad isticmaashid Facebook isticmaashid muuqaalka markaa soo dhigtid u shargaree dad badan ayaa halkaas ka soo raaci doona isla markaana channel-kaada ku soo xirmi doona habka labaad ee channel-kaada subscribe-kiisa ku kordhi karto waxay tahay inaad mar kasta muuqaalo cusub aad soo geliso channel-kaaga qaar ayaa isbuuc ama laba isbuuc waxay soo gelishaan hal muuqaal oo kaliya kadib ayaa waxay ku dhahayaan channel-kayga ma kordhayo subscribe-kiisa ayaa taa ma badan maxaa yeelay channel-ka inay subscribe dadku dhahaa maahane unsubscribe ayay ku leeyihiin subscribe adiga sugaysa laakiin unsubscribe ayay ku leeyihiin maxaa yeelay channel-kaada lagu caadisayaa qof sugi kara ma lahan hal muuqaal maanta doo fiirsado 7 maalin ama 14 maalin kadib inuu muuqaal kala sugo aad iyo aad ay dhib ugu tahay isla markaana wuxuu ku qasbanaanayaa qofka ama uu jeclaanayaa inuu unsubscribe karo channel-kaada uu iska dhaafaba haddaba si aad dad badan u heshid 3 muuqaal ama 4 muuqaal isbuucii soo geli si dad badan ay kugu soo xirmaan hab kale channel-kaada ku kordhi kartid oo aniga aan isticmaalo oo secret ah waxay tahay in aad ka fikirtid waqtiga aad soo gelinayso muuqaalkaaga taas waxay ku xiran tahay waa inaad ogaataa marka ugu koowaad dadka kugu xiran intee joogaan intee ku sugan yihiin waa maxay dadkaada yacni nooca dadkaada yihiin waa inaad ku fikirtaa tusaale ahaan aniga kale channel-ka dadka fiirsa waxay u badan yihiin Soomaaliya marka waxaan ku xisaabtamayaa waqtiga dadkaas ay faaruq yihiin tusaale ahaan aniga Soomaaliya jooga channel-kayga markaa rabo inaan wax soo dhigo waxaan isticmaalaa 12 saac ilaa maqribka inta u dhaxaysa ay soo dhigaa maxaa yeelay xilligaas waa xilliga dadka ay faaruq yihiin isla markaana ay ku daawan karaan adiga marka waa inaad ogaataa channel-kaada dadka ku xiran halka ay joogaan kadib waqtiga ay faaruq yihiin iyo maalmaha ay faaruq yihiin inaad muuqaalka soo dhigto ayaa loo baahan yahay haddii aad xiisaynayso inaad ogaatid dadka kugu xiran halka ay u badan yihiin fadlan qaybta commentiga nagu soo qor iga soo codso insha Allah waxaan rajeynayaa inaan muuqaal cusub kaga sameeyo waxaa sidoo kale ka mid ah channel-kaada waxyaabaha ku dhig karo inaad isticmaasho thumbnail waa wax aad iyo aad u muhiim ah oo basic u ah ama aasas u ah channel-kaada ama muuqaaladaada oo views badan aad ka helaysid viewskaas hadhow waxay kuu sahlayaan in channel-kaada dad badan ay ku soo xirmaan kadibna subscribe ku saaraan thumbnail haddaad aqoon thumbnail-ka waxaa waa sawirka ka horeeya muuqaalka isla markaana ka turjumaya muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay haddii aadan aqoon xataa muuqaalada qaabka loo qurxiyo fadlan ku dadaal inaad isticmaasho thumbnail aad u qurux badan oo dadka soo jiita qodob kale oo aan jeclahay oo aniga isticmaalo oo rabo inaan idinka idinla wadaago waxay tahay inaad isticmaashid title-ka يعني فيديوga title-kiisana ka dhigtid mid bold ah oo far waaweyn aad ka dhigtid maxaa yeelay farta waaweyn micnaheedu waxay tahay waxa inay wax muhiim yihiin waxa markay farta bold tahay muhiim inay yihiin ay mar walba tilmaamaan marka qofku markuu arko wuxuu isleeyahay oo muuqaalka caadi ma uu ku dhufanaya marka muuqaalkaaga title-ka u sameynaysa ama ciwaanka u sameynaysa ahaato mid bold ama far waaweyn ku qoran sirta ugu dambeeya oo jeclahay inaan idin soo gudbiyo oo ka dambeysay guusheeda waxay tahay inaad isticmaashid tags aad u qurux badan tags waxay ka mid tahay wax dadka soo jiita yani tags hadaa isticmaashid tusaale ahaan hadaa dagaalka aad tagtalkaada ka dhigtid ama hees aad ka dhigtid wuxuu soo sugli doonaa muuqaalkaada fanaaniinta ama heesaha ayuu soo sugli doonaa marka adiga mawduucaad ka hadlaysid ayaad ku qoraysaa title-kiisa tusaale ahaan markaad teknolojiyada ka hadlaysid title-ka waxaad ku qoraysaa kale Soomaali technology YouTube da ka hadlaysid YouTube qaabka lacag loo sameeyo YouTube waxyaabahaas ayaa soo skeenaysaa muuqaalkaada si aad wax walba oo YouTube ku saabsan markii qofka u gasho muuqaalkaada soo baxo waxaan rajeynayaa daawayana muuqaalka aad ku xisaabtan aad ka heshan oo sirkan ka faa'iideysan doontaa insha Allah anna waxaan idin balqaadaa haddii aad waddooyinkan si saxan u raacdid inta ku sheegana aad raacdid inuu channel-kaada isbedel weyn ku imaan doono insha Allah oo dad badan ay kugu soo xirmi doonaan ugu dambeyn waad ku mahadsantiin daawashada daabatay muuqaalkan fadlan adiga daawanaya haddaad ku cusubtahay channel-kayga please subscribe ku samee sidoo kale like sar muuqaalka si aad noogu dhiirigeliso mahaantana muuqaal walba cusub oo anaga aan soo gelinayo kugu soo dhacaan haddii aad su'aalo qabtid qaybta commentiga noogu soo qor waad ku mahadsantaa mar labaad